السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا عشرادين امتحاناها برشادة لغة بايثون ee aad kala socoteen janaalka CR Warsame. casharkeena maanta waxaan ku arki doonaa storing functions in modules. Functionski inaan kaligood file ka dhigi karno oo module wax la ku xareyn karno. Markii ay dheeraadaan programku markuu weyn yahay dabcan oo functions badan uu ka kooban yahay, waxa laga yaabaa in ay isku ka dhex yaacaan markii aad hal file wixii dhan hadii aad ka dhigto. marka si ay u kala socnaadaan waxaan sameynaynaa waxaan tusayaa in aan functionska wixii islaba inaan group intaan ka dhigno file gooni aan geyn karno module leeyahay modulekaas hadhow aan dhigi karno soo import gare oo filekeygii kale aan ka isticmaali karo dabcan waxaan noo imaan doonaa hadduu leeyahay classes iyo inaad isticmaali karto waxyaabo kale inheritance iyo wax la midka ah oo files badan aad abuuri kartid oo is qasab ahayn hal file inaad isticmaasho laakiin modules waxay ka mid yihiin waxyaabaha aadka u faa'iidada badan oo codekaagiina aad ku kala sooci kartid kuwa badan oo diyaarsanna way jiraan oo aan arki doono sida loo isticmaalo laakiin hadda module anigu aan abuurayo ayaan rabaa waxaan abuurayaa marka laba file oo cusub ayaan abuurayaa ama haddaan rabo filekan aan isticmaalaynay functions siisa ayaan u isticmaalaynaa waxaan kale oo abuurayaa hal file ayaan abuurayaa marka kan ayaan iska tirtirayaa marka hore waxa iigu qoran oo dhan waa remove garaynayaa empty ayaan ka dhigayaa waxaan abuurayaa file kale oo cusub waxaan leeyahay right click waxaa abuurtaa python file waxaan u bixinayaa filekan calc oo aan ka soo gaabiyey calculator ama calculations filekan waxaan rabaa marka inaan ku abuuro functions dhowr ah oo aan rabo xisaabaad basic inay ii fuliyaan tusaale waxaan rabaa function ii sameynayso in wax la isku daro mid sameynayso in wax la isku qaybiyo la isku dhufto iyo la kala jaro iyo kuwa arta ayaa ku dari kartaa hadhowna waxaan rabaa filekeygii kale inaan ka isticmaalo functionska marka functionska definitionkooda bis ayaan filekan dhex dhigayaa waxaan leeyahay def functionka koobaad ayaan ku bilaabaya dabcan comment iyo sharaxaad ayaad ka hormarin kartaa haddii aad rabto waxaan leeyahay function koobaad add numbers ama add aan iska dhaho si ay hadhow igu gaabato isticmaalkeeda waxaan leeyahay laba variable oo lagu kala magacaabo num1 iyo num2 functionkan waxay samaynaysaa mar walba ee loo yeero inay soo celiso num1 oo lagu daray num2 intaas ayay functionkan qaban doontaa waxaan sameynaa marka waa koobiyeysanaya functionkan maadaama iyagoo kale ay noqon doonaan waa u dhawaan doontaa magac bisan ku kala bedelaya functionska aan abuurayo dhan meesha add aan dhahay bisan halkan waxaan leeyahay subtract kala jar ayaan leeyahay labada number ee lagu soo siiyay halkan waxaan leeyahay waxa celisaa num1 oo laga jaray num2 functionka xigto waxaan sameynayaa dabcan magaca kaliya ayaan ka bedelayaa waxaan leeyahay iyadana isku dhufo tusaale ahaan multiply waxaa isku dhufataa labadii number ee lagu soo siiyey halkaana maxaa leeyahay waxaa celisaa number 1 oo lagu dhuftay number 2 functionkeena afraad waxaan leeyahay divide isu qaybi number 1 iyo number 2 kabacdina waxaa celisaa number 1 slash number 2 slash marka waa dabcan qaybtii labadii number la isu qaybinayay ee jajabka soo celinaysay haddii arti aan soo celinayna slash waa tii aan dhihi jirnay filekan intii function ee aad rabto ee dabcan isleh ee shaqooyinku qabanaya ayaad sidaas oo kale ugu abuuri kartaa markii filekan hawshiisa dhamaato waxaan tagayaa filekeygii kale inaan isticmaalo ayaan rabaa waxa ugu horreeyaan sameynaya waxaa marka si aan u isticmaalo u sheego functionka hadhow haddii aan dhaho halkan add waxaa isku dartaa hal iyo labo add maxay tahay lilia ma aqaani add waxay tahay marka si uu u fahma add waxaan rabaa marka hore inaan u sheego add meesha ay ku qeexan tahay waxaan leeyahay marka importi waxaa soo importi garaysaa file lagu magacaabo calc soo import garayso hadda waxaa ii suurtagal ah marka inaan dhihi karo iskugu kaydar inta aan dhihin marka wax iskugu kaydar iyo wixii la midka ah waxaan abuuranayaa functionkaygii mainka halkan ayaan waxaan ku abuuranayaa main functionkii tii aan ku sheegay waxaan leeyahay mainka ayaa marka dhexdeeda waxaan ku sameynayaa userkii inaan dhaho laba number soo geli labadii number uu soo geliyana kabacdi aan calculationskii ku isticmaalo waxaan leeyahay marka first numberkii koobaad ayaan rabaa inaan ku xariyo halkan userkan waxaan leeyahay number soo geli dabcan markii number soo geliyo waa hore u soo aragnay stringii u qaadanaysaa marka integer aan rabaa inaan ka dhigo ama floatkii aan rabto ka dhig integer aan qaatay waxaan leeyahay enter waxaa soo gelisaa first numberkii koobaad ii soo geli waxaan leeyahay numberkii labaad ii soo geli haddana waxaan userka weydiinayaa inuu soo geliyo numberkii labaad waxaan leeyahay halkan
second number isoo geli enter first number enter second number kii labaad soo geli waxaan rabaa marka functionkii calculationskii inaan isticmaalo isku daro kala jaro iyo intii la midka ah waxaan leeyahay halkan printy waxaa soo daabacdaa first oo variablekii first wixii ku jiray ah waxaan rabaa inaan ku daba qabto comma waxaa ku daba qabataan leeyahay calaamadda plus comma waxaa ku daba qabataa second marka first wixii ku jiray numberkii koobaad calaamadda plus soo dhig second tusaale ahaan 10 iyo 20 hadday tahay 10 lagu daray 20 wuxuu dhihi doonaa equals waxay la eg tahay kabacdina halkaa waxaan rabaa natiijada in la igu sheego natiijada intay ka imaanaya marka calci dot add functionkii add ee ku qornaa fileka calci ayaan rabaa in ay isugu kay darto first comma second haddii aad fiiriso marka functionkii u yeeristeedii intaan waay add first comma second calcina dabcan wuxuu ii suurtagelinayaa in aan functionkaas aan u yeeri karo isticmaali karo importigaygii aan hore usoo sheegay filekii magaciisa waa calci dot add first comma second intaa horena waa qurqurxin numberkii koobaad lagu daray numberkii labaad is equal to natiijadii inuu ii soo saaro oo kale ayay samaynaysaa aan isku dayo inaan ran dhaho programkan ii rangaray ayaan leeyahay sida ku muuqanayso dabcan uma yeerin functionkaygii mainka that's why uun waxba usoo saaraynin mararka qaar way kugu dhacaysaa markaad isticmaashadaan oo kale adigoon functionkii u yeerin inaad ran dhahdo haddii ay sidaan oo kale kusoo baxda meesha ugu horreyso ad ka shakeyso functionkii mainka ma u yeeray ayaa la rabaa inay noqoto waayahay mainkii ayaan u yeeray aan ku celiyay mar kale ran ayaan leeyahay wuxuu leeyahay haddaa fiirso enter first name markaan ran dhaho halkaanuu ka bilaabayaa executionka mainkii u yeerayaa markuu u yeero dabcan halkaa lafteeda waa function call ogow function loo yeeray waa mainkii markuu u yeero wuxuu samayn doonaa inuu shaqadii ku dhex qorreed qabto wuxuu idhaa marka first name soo geli number soo geli numberkii koobaad numberkii labaad labada markaan geliyo shaqadan ayuu qaban doonaa isaga oo functionkii ku qornaa filekan calci u yeeri doono u pass garayn doono number 1 iyo number 2 kabacdina resultii ka soo laabtay ayuu halkan ku soo celin doonaa qaabkaas ayuu noqonayaa execution waxaan dhahay halkan 10 lambarkii labaad soo geli 20 wuxuu leeyahay 10 lagu daray 20 is equal to 30 haddaan rabo marka waan dhamaystiri karaa si aan functions kale oo dhan aan ku tuso sida ay noqonayaan waa koobiyeysanaya afar mar wixii bedel u baahan mid walbana waa ka bedelaya marka first lagu daray second ay kii hore kan labaad wuxuu noqonayaa first laga jaray second kan kale wuxuu noqonayaa first lagu dhuftay marka lagu dhuftay darba x aan leeyahay oo aan times ka wada haddaan rabtana dabcan starki caadiga ah waa isticmaali kartaa loo qaybiyana waxaan leeyahay first divide by second waxa ay noqonayso dhammaantood marka functionski magacyadooda bis ayaan ku bedelayaa halkan waxaan leeyahay subtract first comma second halkan waxaan leeyahay multiply first comma second halkan waxaan leeyahay divide first comma second programkaagii isagoo dhammaystiran oo calculationskii noocaas ah samaynayo ayuu ku soo bixi doonaa marka waxaan samaynayaa run ayaan leeyahay mar kale lambarkii koowaad soo geli markuu dhaho waxaan leeyahay waa 10 lambarkii labaad soo geli waxaan leeyahay 5 10 lagu dhuftay 5 10 lagu daray 5 10 lagu daray 5 waa 15 10 laga jaray 5 waa 5 10 lagu dhuftay 5 waa 50 10 loo qaybiyay 5 waa 2.0 ayuu ku leeyahay wuxuu ku tusayaa marka programkan haddii aad fiiriso in aad isticmaali karto waxa la yiraahdo modules inaad isticmaali karto oo aad functionskaaga oo dhan isugu geyn karto hal meel dabcan functionska si isu leeyihiin waxa laga yaabaa inaad u baahato dhowr module ama dhowr file inaad abuurto oo mid walba functions dhowr ah aad ku abuurto 4 5 6 mid walba aad gooni u isticmaasho kabacdina halka markaad timaado wixii imports ah korkeen isticmaalkoodii main ku dhex isticmaal hadhowna functionkii mainka ugu dambeyn inaad u yeerato oo kale ayaa ka dhalanayso sidaas oo kale ayaa programmiska iyo loo nidaamiyaa loo organize gareeyaa si ay kugu noqdaan wax kooban oo neat ah oo hadhow haddii error dhaco ay fududahay meesha ka sixi lahayd haddii aad wax ku daraysid haddaa wax ka dhimaysid wax ka bedelaysid ay fududahay meeshii aad ka samaynaysid functionsku aad ayay u soo koobaan programkaagii iyo quruxdiisa iyo isticmaalkiisa iyo wax ka bedelisiisa dhammaantood waa ku mahadsantihiin waqtigiina intaas ayaan kusoo koobaynaa xiisadan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh